wasiirka amniga Israa'iil Ben-Gvir ayaa wuxuu dalbaday fiisa galka dalka Mareykanka waa loo diiday waxaa lagu yiri fiisahaaga heli maysid. Ben-Gvir oo ah nin aad iyo aad u xasuuqay shacabka Falastiin. Ben-Gvir wuxuu isku dayay mar kale inuu dirsado fiisaha Mareykanka haddana waa loo diiday. dowlado badan oo Yurub ka mid ah waxay yiraahdeen mana soo gali kartid. Ben-Gvir ayaa waxaa loo haystaa dacwooyin xasuuq qoseeya oo uu u geystay Falastiinta dhibaataysan halka oo uu shalay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro u gaaray Qudus. sidaad u jeedaan Ben-Gvir oo ah wasiirka amniga Yahuudda ayaa loo diiday inuu galo wadanka Mareykanka iyo wadamaha Yurub. sidaa darteed soo ceeb iyo fadeexo kuma aha madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro inuu tagay magaalada Qudus oo ah magaalo ay leedahay dowladda Falastiin. hadda maanta iyo shalay waxay hadal hayaan TV-yada caalamka oo idil Ben-Gvir oo ahaa wasiirkii amniga ee Netanyahu u magacaabnaa ayaa dalka Mareykanka loo diiday taasoo caalamka oo idil ay hadal hayaan. sidaa darteed Ben-Gvir asagoo wasiirkii amniga ahaa in loo diido Mareykanka soo uma aha Ciro mid uu aad iyo aad uga shalay doono maadaama uu asaga Qudus u aqoonsaday inay Yahuud leedahay.